safarka ardaynimada waa safar aad u dheer, dulqaad iyo adkaysi u baahan, farxado iyo murugo isxigxigana wata. farxadihiisa waxaa ka mid ah maalinta aad hesho natiijadaada mid ka mid ah marxaladaha waxbarasheed sida dugsiga sare oo aad hesho natiijadii aad ku haminaysay ama aad ugu yaraan baasto. maalintaas waxay ardayda uga dhigan tahay maalin farxadeed oo aysan weligood iloobi doonin. sidoo kale in aad jaamacad bilowdo waa farxad kale oo aad muddo sugaysay, laakiin waxaan hubaa inaad caqabado badan kala kulmi doonto jaamacadda haddii aadan u diyaar garoobin. waana dhibta haysata 95% ardayda dunida, gaar ahaan kuweena Soomaaliyeed. muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa talooyin iyo xeelado ka anfici doona inaadan ku wareerin jaamacadda sanadka ugu horeeya. qodobada aan jeclahay inaan muuqaalka idinkugu soo gudbiyo waxaa ka mid ah usbuuca koowaad ee jaamacadda iyo sidaad ula qabsan lahayd, sida loo qaato khulaasada ama notiska casharrada, sida ugu fiican ee loo akhriyo buugaagta casharrada, iyo sida loo diyaariyo assignmentska iyo presentationska loona soo jeediyo. haddii aad ka mid tahay dadka uu mowduucan quseeyo oo aad danaynayso, ku soo dhawow mowduucan oo dhammaystiran. soo dhawaada mar kale, magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi. waxaa hubaal ah usbuuca ugu horeeya ee jaamacadda in aad dareemi doonto cabsiyar, xishood iyo kelinimo aadan dareemi jirin xilligii dugsiga sare. laakiin waxaa xaqiiqo ah inaad si fudud uga gudbi doonto haddii aad raacdo talooyinkan insha Allah. waxaa aad u fiican inaad jaamacadda imaado ka hor saacad ama 2 saacadood usbuuca ugu horeeya ee jaamacadda. taasi ayaana kuu sahlaysa inaad waqti u hesho barashada dadka muhiimka ku ah, sida qaybaha kala duwan ee maamulka jaamacadda, macallimiintaada iyo cid walba oo muhiim kugu ah waxbarashadaada. furfurnaanta iyo dhexgalka bulshada waa mid loo kala dhasho. haddii aadan u dhalan, waxaa loo baahan yahay inaad la timaado weji furnaan si aad u hesho saaxiib ama asxaab wanaagsan oo kula qaybsata cidlada aad dareemaysid. safarka dheer ee ku bilaabmayana aad isku weeshataan. laakiin haddii aad weji xirnaan ku qaabishid ardayda kuwa fasalka ah, waxaa laga yaabaa in adiga oo aan xumaan ay kaa fahmaan. u diyaar noqo waxqabadyada ay macallimiinta dirayaan sida assignmentska, kuna dadaal inaad mid walba waqtigiisa ku soo gudbiso. haddii aad yaraysato oo ay kugu bataan shaqooyinka ay macallimiinta kaa rabaan, waxay taasi kugu keeni kartaa inay kugu adkaadaan waqtigana kugu dhaco, halkaasna aad niyad jab kala kulanto, buundana ay kugu dhaafto. nasiib wanaagsi, waxaan mowduuca qaybihiisa dambe si faahfaahsan uga hadli doonaa sida loo diyaariyo assignmentska. si ka duwan dugsiyada sare, jaamacadda waxaad ku arki doontaa in guud ahaan ardayda jaamacadda ay leeyihiin nidaam maamul ama midow ardayda ah. si la mid ah fasalka ama kulliyadda aad dhigato wuxuu yeelan doonaa nidaam maamul. marka ka qayb qaado dhismaha maamulka fasalkaaga adiga oo aan xil doon ahayn. haddii uu hagaago hoggaanka fasalka, waxaa sidoo kale hagaagaya mustaqbalka horumarka fasalkaas. haddiise uu hoggaanka ka xumaado fasalka, waxaa sidoo kale xumaanaya xiriir kasta oo uu fasalka la yeelan lahaa maamulka jaamacadda, macallimiinta iyo fasalada kale ee jaamacadda. sida caadada ah, jaamacadda waxaa la bixiyaa lecture ama muxaadaro ee sida dugsiyada hoose, dhexe iyo sare. macallinka inta cashir soo diyaariyo sabuuradda kuma qoraayo, kadibna ma sharaxayo. sidoo kale jaamacaddu waxay leedahay buugaag manhaj ah oo aad u waaweyn. macallinkana buugaagtaas kama akhrinayo cashirka, keliya wuxuu sameynayaa ciwaanada cutubkaas ayuu soo qaadanayaa, fikrad guud ayuuna ka bixinayaa. marka ardayga waxaa looga baahan yahay lecture-ka uu macallinkaas bixinayo inuu kala soo dhexbaxo waxyaabaha muhiimka ah. waana sheegi doonaa sida aad ku fahmi karto meelaha muhiimka ah. qaybta nood qaadashada waxaan u kala qaadi doonaa 3 qaybood oo kala ah: ka hor cashirka, xilliga uu cashirka socdo, iyo cashirka kadib. inta aan la gaarin cashirka, ku dhaqan qodobadan soo socda. dib u akhri noodkii ama khulaasadii aad ka samaysay cashirkii hore, adigoo u diyaar garoobaya su'aalaha ka iman kara cashirkaas. sidoo kale tan waxay kuu fududeynaysaa inaad si fudud u fahamto cashirka cusub. akhri cashirka cusub ee soo socda ka hor inta uusan macallinka akhrin ama sharxin, adiga oo kaashanaya buugga manhajka ee laga dhigo maadada. muhiim maahan inaad wada fahamto dhammaan casharrada, laakiin waxa aad ku fahmi kartaa ujeedada guud ee uu cashirku leeyahay. inta uu socdo cashirka, ku dhaqan qodobadan soo socda. imow fasalka xilli hore si aad u hesho kuraas hore. inaad fadhiisato kursi hore waxay leedahay faa'iidooyin badan, waxaana ka mid ah inaad si fudud u fahamto sharaxaadda macallinka, iyo inaad sidoo kale si sahlan u weydiin karto macallinka su'aal ama wixii kale ee aad fahmi weyso. ka fogow wax walba oo ku mashquulin kara inta uu socdo cashirka, sida hadalka ama sheekada, ku mashquulidda moobilkaaga ama buugaagtaada iyo wixii la mid ah. si gaar ah u calaamayso meelaha uu adeegsado macallinka erayada ay ka mid yihiin. waa muhiim meeshan. natiijadu waxay tahay gunaanadkii. si fiican ula soco halkan. nuxurka cashirku waa iyo wixii la mid ah.
dhammaan ereyadaas gaagaaban waxay muujinayaan muhiimadda halka uu macallinku ka akhrinayo casharka. fiiro gaar ah u yeelo guud ahaan su'aalaha fasalka la isku weydiiyo, hadday ahaan lahayd kuwa uu macallinku weydiiyo ardayda, kuwa aad adiga weydiisid macallinka, iyo kuwa ay ardayda kale weydiiyaanba, maxaa yeelay su'aalahaas waxay xambaarsan yihiin micnaha casharka oo dhan. cilmi baaris la sameeyay ayaa sheegaysa in 80% ay dhumaan wixii aad baratay haddii aadan 24 saac gudahooda dib ugu laaban oo aadan akhrin. haddaba si aad uga fogaato dhibaatadaas, dib u akhri noodkii ama casharkii aad soo qaadatay, iskuna day inaad si dhab ah u fahamto si ay u dagaan qaybta maskaxda ee xusuusta dheer qaabilsan. haddii aad heli kartid qof aad u sharaxdo casharka, u sharax. haddiise aad weyso, adiga laftaada isku sharax oo isbar. sidoo kale waxaad ka soo saartaa casharka su'aalo, kadibna raadi jawaabaha su'aalahaas iskana dhageyso. intaas ardaygii maraa isaga oo kaashanaya sabar iyo go'aan ah inuu si dhab ah wax u barto, ilaahna tala saarto, waxaa hubaala inuu guuleysan doono insha Allah.